bilowga filimka robotyada waxay noqdeen kuwa aad u horumarsan iyagoo si buuxda u qabsaday adduunka waxaana robotka uu filimkana maanta qusay lagu magacaabaa Mother Robot. hooyadii robotkeedna waxay samaynaysaa ama bacriminaysaa cunug aad been u daryeeli jirtay cunugay bacrimisay muddo dheer kadib cunugii waa uu koray wax uuna noqday gabar yar oo aad u qurux badan. hooyadii robotkeedna aad bay ugu farxday inay hesho gabar yar waxayna siin jirtay cunto iyadoo la sheekaysan jirtay buugaagta ayna u akhrin jirtay iyadoo u sheegtay in bini'aadamka ay baabeen oo aysan jirin wax bini'aadam oo dunida ku nool. waxayna ugu dambeyntii gabadhii gaartay 7 sano ilaa 8 sano. maalin maalmaha ka mid ah ay gabadhii hooyadii robotkeed weydiisay maxay ahaayeen bini'aadamka xageena ku noolaayeen. sidaas daraadeed hooyadeeda ayaa ku jawaabtay dunida waxaa ku noolaan jiray bini'aadam balse dhammaan bini'aadamkii gacantooda ayay isku cirib tareen taasoo la macnaha inay dhexdooda isdigaali sidaas ayna ku baabeen dhammaantooda iyagoo wada dhintay. waxayna hooyadii robotkeed u sheegaysaa gabadheedii inaysan u bixin bannaanka maxaa yeelay hawada bannaanka aad bay u saqaysan tahay waana sababta ay gabadheeda ugu diidan tahay inay bannaanka ku baxdo. waxayna hooyadana robotkaa si wanaagsan ula hadli jirtay gabadheedana iyadana way ixtiraami jirtay inkastoo gabadhaan ay gabar yar ahayd. hooyadii robotkeedna waxay gabadhii bari jirtay habdhaqankeeda iyo cuntadeeda qaabkay ku cafadin lahayd qaabkay ku noolaan lahayd sidoo kalena waxay u tarbiyan jirtay sida hooyooyinkeena caadiga ay u tarbiyeen carruurtooda. hooyadii robotkeedna gabdhii yareed waxay u korisay si aanan caadi ahayn iyadoo ku dadaashay caafimaadkeeda siisayna caafimaad dheeraad ah. waxaa kaloo hooyadaani robotkaa baraysay gabadhaani dhammaan anshaxa iyo habdhaqanka wanaagsan waxaana sidoo kale gabadheeda ka qaadi jirtay imtixaan iyadoo markaas gabadheeda u dhisi jirtay si maskaxiyana. intaa kadib gabadhii ayaa markaan hooyadeeda waxay weydiinaysaa hooyo sideen aniga ku dhashay sidayna aadamaha oo dhan ku wada dhinteen sidee baana ku badbaaday keligayga. waxaan u sheegaysaa hooyadii robot ka ahayd inaysan iyada bini'aadamka ka haran balse gacanteeda ku bacrimisay. sidoo kalena waxay tusinaysaa carruur badan oo markaas ay bacriminaysay hooyadii robot ka ahayd waxayna sidoo kale ku tiri shaybaarkaana waxaa ugu talagal inaan dhammaan carruurtaan ku bacrimiyo si ay markaas u wada noqdaan adigoo kale. sidoo kalena hooyadana robotka maysan u ogoleen gabadheeda inay dareento inay duni bannaanka ka jirto laakiin ugu dambeyntii gabadhii waa ay koraysaa iyadoo gaartay 18 sano. ilantii waxay bilowday inay markaan wax badan raadiso oo wax akhriso intay wax akhrinaysa dhammaan iftiinkii goobta ayaa ka tagay. gabadhiina markii iftiinka uu ka tagay aad bay u naxday sababtoo weligeeda hore maysan u arkin iftiinkan oo tagaya. waxayna sidoo kale ogaatay gabadhii in dhowr fiilood oo ka mid ah nidaamka shaybaarka ay waxyaalo soo gaareen waxaana waxaas oo dhan geysanaya dooligan iyada aqoon maysan u lahayn sababta weligeeda maysan arkin nool aan ahayn robot. iyadoo taas ay jirto waxay bilowday inay hagaajiso fiilooyinkii iyadoo isku dayaysa inay ku xirto fiil kasta meesha ay lahayd sababtoo iyada aad bay u taqaanay fiilooyinka meeshan maadaama ay ku dhex dhalatay. sidaas aawadeed waxay dhammaan hagaajisay fiilooyinkii iyadoo markaasi gacanta ku dhigtay dooligii yaraa. ugu dambeyntiina waxay dib u soo celinaysaa dhammaan iftiinkii waxayna markaana soo qaadaysaa dooligii iyadoo markaas u keentay hooyadeedii robot ka ahayd. laakiin hooyadeedii markay dooliga u keentay hooyadeedii robotkeed ayaa weydiisay xagguu ka yimid dooligan xaggeedna ka soo qabatay balse gabadhi ayaa markaana waxay u sheekeynaysaa dhammaan sheekadii oo dhan iyo qaabkii dooligan ku soo qabatay. hooyadiina markay ogaatay inuu halkaan dooli soo galo waxay bilowday inay markaas u gubto dhammaan shaybaarkii maadaama ay kasoo horjeeday in nolol dhulka yimid uu halkaan ugu soo galo. waxay markaas u sheegaysa gabadheedii in dhammaan noolaha ka yimaada dhulka ay wataan cudurkaasna ma lahan wax daawo ah qofkii uu ku dhacana waa uu cirib tirayaa. gabadhiina markay midaas aragtay aad bay u yaabtay iyadoo markaas ku tiri hooyadeeda hooyo soo ma laga yaaba noolayaal inay jiraan dhulka adigana midaasi aadan ogeyn. laakiin hooyadii robotkeed midaasi ma danayso laakiin gabadhii waxay dareemaysaa inay hubaal tahay inay jiraan bini'aadam ku nool adduunka waxayna aaminaysaa haddii dooligan uu ku noolaa dhulka inay jiraan bini'aadam ku nool dhulka. gabadhiina waxay markaana ku fikiraysaa inay markaana soo aado dhulka si ay markaa usoo aragto wax jooga waxayna markaana soo xiranaysaa dharka ilaalinta iyadoo markaas doonaysa inay soo dhaqaajiso. robotkii hooyadeed ahayna midaas maysan u sheegin waxayna doonaysa inay soo dhuumasho halkaan ugu baxdo. laakiin gabadhii intay furaysay albaabka shaybaarka waxaa markaana horteeda ka yimid haweeneydaasna xaalkeeda muusan fiicnayn waxayna u ekeed mid daciif ah. waxay markaas weydiinaysay gabadhii fadlan iyo caawi. gabadhiina markay midaan aragtay aad bay u yaabtay waxaana shaqartaasa maqlaysa hooyadii robot ka ahayd wayna soo dhaqaajinaysaa iyadoo markaan ugu dambeyd u yimid gabadheedii waxayna markaas ku tiri maxay tahay albaabkaani furan. laakiin gabadhii maysan u sheegin albaabka cidda ka soo baxday balse way ogaed inay albaabkaas ka furtay haweeney. laakiin gabadhii waxba maysan u sheegin hooyadeedii robot ka ahayd wayna kasoo dhaqaajeen halkaas iyagoo soo aaday gudaha. markii ay gudaha soo gasho hooyadeeda waxay ku amraysaa inay wax akhrisato. intaa kadibna hooyadeedii robotkeed bay siiga tegaysaa. intaa kadib gabadhii waxay bilowday in halkaas ka soo dhaqaajiso si ay markaas ula soo kulantay haweeneyda ay la kulmaysay wayna soo baxaysaa gabadhii iyadoo markaas la kulmaysa haweeneydii waxaana weydiisay gabadhii inay haweeneydii xaaladeeda weydiiso
intaa kadibna waxaa shaqartoodii maqlaya robadkii hooyada ayaa bilaabay inuu dhankood usoo cararo, laakiin haweeneyda ayaa bilowday inay markaana xabadayso laakiin robadkii xabad waxba maysan ka dhibirin, waxayna markaana gacanta ku dhigaysaa haweeneydii iyadoo doonaysa inay disho gabadhi ayaa markaas waxay u sheegaysaa hooyadeedii robadka ahayd, ha sameynay midaan hana dilin gabadhan faraha ka qaad, waxaan ogaanaynaa in haweeneydan meesha ku xirnayd looga xiray inay cudur qabto, laakiin gabadhi ayaa markaas waxay u sheegaysaa hooyadii robadka ahayd inaysan haweeneydani qabin wax cudur ah, gaajo haysa darteed ayay sidaan ugu daciiftay, waxaan usii raacisay gabadhii hooyadeeda soo mogid inay haweeneydani bili-aadam tahay oo in u baahan tahay waxay cuntay waxay cabto, waana nagu qasab inaan anaga caawino. robadka hooyadeed ayaa markaas waxay ku tiri waayahay, waxayna haweeneydii hooyadeed ku qasban tahay inay markaana daryeelaan haweeneydani maadaama gabadheed ay midaasi jeclaysatay, laakiin haweeneydii ayaa midaas kasoo horjeesatay iyadoo markaasi sheegtay inaysan iyada u baahnayn wax daawo ah oo aysan qabin wax cudur ah, laakiin hooyadii robadkeed waxay markaana ku adkaysanaysaa in markaana haweeneydan ay qabto cudur, laakiin gabadheena midaasi way kasoo horjeeday iyadoo la safnayd haweeneydan bili-aadamka ah maadaama aysan iyada weligeeda horey bili-aadam u arkin, waana markii ugu horreysay bili-aadam la kulanto. intaa kadib robadka hooyadeed ayaa markaan waxay u sheegaysaa gabadheeda inay wahayso surprise, waxayna soo wadaysa gabadheeda iyadoo markaas keenaysa sheybaarka, waxay markaasi tusaysa inay bacriminaysa caruur badan kuwaasoo dhawaan kusoo biiri doona dunida. gabadhiina markay midaas aragtay aad bay ula yaabtay maadaama hooyadeed ay jeceshay inay bacrimiso bili-aadamka. intaa kadibna markii hooyada intaas u sheegtay habeenkii waa ay saaxatay, habeenkii markay soo kacdana waxay bilowday inay markaana aado sheybaarka qarsoodideed kaasoo lagu xareeyo xogta, laakiin gabadhii waxay markaan ogaanaysa xaqiiqooyin badan kuwaasoo naxdin lahaa iyadoo markaas ogaatay in hooyadeeda robadka ahayd ay hor u bacrimisay 3 caruur, laakiin caruurtaas iyada waa ay ka horreeyeen, waxayna markaasi caruurtaas ugu guuldareysteen imtixaankoodii maskaxda. haweeneydii robadkeedna waxay dilaysaa dhammaan 3dii caruurba iyadoo halkaas ugu takhalustay, waxaana markaasi gabadhi arkaysa lafiya caruurtii oo ay hooyadada dishay, aad bay ugu argagaxday midaas iyadoo bilowday inay oyso. intaa kadib gabadhii wax markaan la kulmaysa haweeneydii ayaa markaas waxay u sheegtay in run ahaantii iyadii xitaa ay samaysay robadkan, sidoo kalena iyada soo korisay robadkan, markastana iyada indhaha iyagu nuursan jirtay maadaama aniga aan nahay gabar aad u qurux badan, intii aan yaraayo dhan aad bay ii jecleed, laakiin markii aan weynaaday meel ayay ugu xirtay iyadoo xitaa iidiidi cunto aan cuno. intaa kadib gabadhii way kasoo tegaysaa haweeneydii iyadoo markaas u imaanaysa hooyadii robadka ahayd, hooyadii robadkeedna markaana way baxaysa iyadoo markaas weeraraysa haweeneydii maxaa yeelay waxay ogaatay inay wax walba la wadaagtay gabadheedii, laakiin gabadhii markay midaas aragtay waxay markaan isku dayaysa inay badbaadiso haweeneydii iyadoo markaasi jibinaysa muraayadii, waxayna bilowday inay hooyadeedii ka celiso gabadhii, laakiin haweeneydii ayaa hooyadii robadkeed waxay markaan ku rakaataynaysaa gabadhii iyadoo muddo qoorta ka saartay, waxay markaas ku leedahay anaga hay u soo dabagelin haddii kale waxaan dili doonaa gabadhan, waxayna markaas haweeneydii la baxsanaysa gabadhii iyadoo markaas u bixisay banaanka. ugu dambeyntiina waxay markaan yimaadeen meel bannaan ah, sidoo kalena gabadhii waxay timid dhul carro leh, markay midaas aragtay aad bay ula yaabtay iyadoo markaas ogaatay inuu banaanka jiro dhul aad u qurux badan. gabadhiina markay midaas aragtay aad bay u farxday maadaama aysan waxaan oo dhan horey u arkin. intaa kadibna haweeneyda ayaa markaana soo waday iyagoo markaas soo galay container halkaasi yaalay, waxaana markaana haweeneyda u sheegaysaa in dunida dhulka ay ka qurux badan tahay dunida ay ku nooshahay haweeneydaas robadka ah, laakiin gabadha ayaa markaas waxay ku tiri haweeneydii maxaan aniga waxaan oo dhan u ogaan waayay, maxaan iigu sheegi waas adiga markii hore aad arkaysay, waad i qayaantay, waxaana bilowday inay la dagaalanto haweeneydii ayaa bilowday inay gabadhii iska celiso. intaa kadibna gabadhi ayaa bilowday inay markaani ku oyso maadaama laga qariyay duni aad u qurux badnayd. intaa kadib gabadhii wax markaani go'aansanaysa inay dib ugu laabato haweeneydii robadka ahayd si ay markaas iyada kusoo takhalusto, laakiin waxaa halkaas kusoo weeraraya robadyada ayaa bilaabay inay markaan kusoo weeraraan hubkooda, laakiin iyada maadaama ay ahayd gabadhii robadka waxba ma aysan yeelin, waxay markaas soo galaysaa sheybaarkii hooyadii robadka ahayd. ugu dambeyntiina waxay la kulmaysaa hooyadii robadka ahayd taasoo waqti xadirkaasi u dhashay cunug yar oo bacrimisay. gabadhiina markay midaas aragtay aad bay u yaabtay iyadoo u dhaxday cunugii yaraa, sidoo kalena hooyadii robadka ayaa markaas waxay u sheegaysaa iyada markii qof bili-aadam ha abuurtay in ugu dambeyntiin iyada dili jirtay, dadka iyada ay samaysana waxay ahaayeen kuwo aad u fara badan kuwaasoo iyada ka takhalustay. labadood oo kaliya maysan ahayn maxaa yeelay waxaa jirta bili-aadam badan oo iyada samaysay, sidaas oo kalena dhammaantood dunida maysan kusii noolaanin, kuwa ay hadda samayn doontana sidoo kale dunida kuma sii noolaan doonaan. laakiin gabadhii ayaa markaan waxay ku qabilaysaa biskoolad iyadoo markaas ku tiri maysan ahayn inaad midaani samayso, maxaa yeelay adiga waxaa tahay cadow baabiye dhammaan bili-aadamka, adigaad xanaanayn lahayd inta bili-aadam oo aad bacrimisay, adduunyada oo dhan waxay noqon lahayd wada bili-aadam, laakiin midaas adiga ayaan u ogolaan oo dhammaantoodii baabiyey. ugu dambeyntiina gabadhii waxay markaan xabad laqsiinaysaa haweeneydii robadka ahayd iyadoo markaan halkaasi ku dishay, waxayna markaan gacanta ku dhigaysaa caruurtii markaasi bacrimisay iyadoo markaas la wareegtay dhammaan sheybaarkii, waxayna markaasi noqotay hooyada sheybaarkan maadaama haweeneydii robadkeedii halkaas ku dishay. waxaana halkaas ku dhammaanay filimkii. maanta muuqaalkeena waxa waa mid aad u xiiso badan, intaan muuqaalkeena midka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabaadiino.